بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد casharkii kan ka horeeya waxaynu ka soo hadalnay faa'iidooyinka ay leedahay quraanka kariimka oo la akhriyo واليوم في فوائد في سماع القرآن الكريم maantana kelmadeena kooban waxaynu ku oran doonaa insha Allah dhageysiga quraanka iyo faa'iidooyinka ku jira waxaynu ogsoonahay dadka muslimiinta ay maalintiina quraanka akhriyayaan habeenkiina qiyaamkay ku dhageysanayaan oo qaariga akhriyaya ayay dhagaha ka maalayaan marka kitaabka kariimka marna indhahaynu ku culaynaa marna dhagahaynu ku culaynaa waxay isweydiin leh culimada islaamka iyo ummadaha kale caafimaad ka shaqeeyaaba maxay ku sheegeen faa'iidooyin dhageysiga kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu habeenkii dhageysanayno ama marka la akhriyaba dhageysanayso ama muxuu nabiguba u oran jiray asxaabtiisa igu dul akhriya maxaa sire ku jira taasaynu waxyaabaha laga diraaseeyay si degdeg ah u dul mari doonaa ilaa 9 faa'iido ayaa la sheegay qayb kamida weeye faa'iidooyinka caafimaadka ku jira waxa kamida ziyadatu tarkiiz min hudu'i shakhs ويستطيع على أداء الأشياء quraanka kariimka markuu qofku dhageysto waxyaabuhu ka helaya waxa kamida deganaansho shakhsiya ayuu ka helaya deganaanshahaasina wuxuu keenayaa qofka inuu u sameeyo waxa la yiraahdaa tarkiiska ama wax aanu marka hore u samri kareen u samri karo ama dhageysan karo ama ka fikiri karo ama akhri karo marka huduuga iyo deganaanshaha shakhsiga quraanka kariimka qayb uu ka yahay waa qalbiga quraanka isle waxa labaad uu ka faa'iido yahay التقليل من الضغط العصبي والمشاعر السلبية waxaan la yiraahdaa culayska dareen ama neerfayaasha qofka ku dhaca hadiya jeer marka waa ma fikiro ama warwaro waxa ugu badan ee ka fududeeya waa quraanka kariimka sida daraadeed buu nabigu oran jiray inoogu raaxay bilaalow salaadina quraan baa lagu akhriyaa waxa afraad oo uu keena quraanka kariimka dhageysigiisu ziyadatu tafaacul aan ilaahdo at-ta'thir ala jihaz al-manaa'a habdhiska difaaca wuxuu xoojiyaa sababtu xoojinayaana waxa weeye qofku kullama markasta oo uu dareemo nafis iyo sacaado uu dareemo difaaciisu wuu xoogeystaa markasta oo qalaq iyo warwar iyo culays uu dareemana difaaciisu wuu daciifaa sidaas oo kale waxa weeye ziyadatu shucuuri biraaxati wasacaada markuu qofku dhageysanayo Ilaahay kalaamkiisa waxa uu helaa raaxo ayuu helaa wax kasto ku kacsanina way ka degaan ilaa dadka qaarkood la tijaabiyay iyadoo dhiigu ku kacsay marka quraanka la dhageysiyo in huduu ee helo uu dego faa'iidooyinka waxa kamida shayga loo yaqaan ziyadatu tafaacul al-ijtimaa'i wada dhaqaajin xagga bulshada marka kaliga aad akhriyayso quraanka iyo marka lagula akhriyo ama lagula subcinayo ama cid akhriyaysa aad dhageysanayso isku abateed iyo isku firfircoonaan dadku inta badan uma aha ee marka si jamaaciya loo akhriyo qofku wuxuu ku qaadan karaa waqti dheer buu ku qaadan karaa waana u samri karaa beynaba laga yaabo marka kaliga istila akhri ama kaliga ku cibaadayso sida aragteen inuu qofku yara caajisi karo marka kolkuu hebel akhriyo hebel badanina dhageysanayaan ama salaadii lagu dhageysanayo waqti dheer baa la dhageysan karaa quraanka kariimka faa'iidooyinka waxa kamida shayga loo yaqaan ziyadatu kafaa'ati makharij al-huruf wa sifatiha inuu qofku si fiican uga bogan karo una baran karo makharijta iyo sifaadka oo quraanka kariimka wuxuu leeyahay cilmiga tajwiidka shay loo yaqaano xuruftu meel ay ka soo baxaan iyo tilmaamo iyo hab loogu dhawaaqo xuruufta labadaas ay leeyahay waa baab caana oo qofka tajwiidka baranaya labada baab waa inuu si fiican u sugaa makharij al-huruf meelaha xuruuftu ka soo baxaan waa qofku ka soo saaro sifaadka xuruufta loogu dhawaaqo miyaa la yareynaya miyaa la buurbuuraya xarfu way kala duwan waa habka loogu dhawaaqayo luqaduhu adiga arkay oo hab loogu dhawaaqay leeyno sax quraanka kariimka ayna ila luqada carabiga ku soo degay hab sax ayuu loogu dhawaaqa oo adaaga iyo hab gudashada ugu fiican
جزري رسالتي منظومتي استمرك وكهل يوحي الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة marka waa habkii ugu fiicnaa loo akhriyo kaasana ilaahay ku soo dajiyo marka qofku hadduu iska akhristo iyo haddii uu dhageysto uu kala yar duwan yahay oo macallinkii inaad ka dhageysato cajalad iyo sheekhi qaariga ahaa inaad ka dhageysato waxay ku fududayn doontaa habka xarafka loogu dhawaaqo iyo meesha laga soo saaray inaad soo saarto ka soo saarto waxyaabaha quraanku oo inoo faa'iideynayo dhageysigiisu ayay ka mid tahay shayga loo yaqaan ziyaadatul khushuuci wal iimaan khushuucda iyo iimaanka iimaankuna wuu kordhayaa khushuucduna waxa weeye adigoo la xidha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dareenkaagu kor u dalaco oo qiiro iyo jibbe iyo jacayl wanaagsan yeesha taana dhageysiga quraanku wuu keenaa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قرآنك وحسديداد فإذا كيس كمذا تجميع الملائكة ملائكة إن خصوا ورورينا إبليس كي الشياطين تروين كوكلا أرينا محاد كويدا إن ملائكة كل الناش وضفردان مجلس شيطان كافر دلائي marka hadii quraanka la akhriyo waa shaytaanka ayman malaa'iktuna way tagaysa sidaana waxay noo sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiix ahaa markastoo qolo ay ku kulmaan guriyaha ilaahay kamida naxariistuna way dabooshaa malaa'iktuna way ku soo degtaa ilaahayna wuxuu ku xusaa oo ku amaana malaa'ikta agtiisa joogto iraada bal adoomahayga sida quraanka u akhriya iyo sida ilaahay u xusaya subhanahu wa ta'ala marka inuu caalamka sare u heshano iyadana dhageysiga quraanka ka qayba in iska dhageysanayno arinta sagaalaad waxa weeye sababu alhidaayati lil-insi wal-jinn jinn iyo insi marka ay dhageystaan in badan baa ku hanuuna quraanka kariimka ah taariikhda hadda dib u akhrido dad badan oo soo islaamay iyo dad badan oo faasiqiin ahaa oo toobad keenay suurad heblaayan dhageystay aayad heblaayan dhageystay buu kooranaya Jubayr ibn Mud'im asxaabigii la oran jiray sida saxiix iyo Bukhari ku sugan wuxuu anigoo gaalaho Madiina tagay oo nimankii la qabsaday Badr lagu qabsaday u socda madax furashadooda ayuun baan dhageystay buu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam isagoo salaad maghribka ku akhriyay suurada la yiraahdo suuratu Duur am khuliqu min ghayri shay'in am hum khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun su'aalaha badan ee Ilaahay uu dadka weydiinayo oo uu leeyahay ma iyaga wax abuuray ma iyaga is abuuray ما وحل أبو إله الآن تبتنا أرنتاس قلبي جاي كل بقضي سببنا وحي النقطتين وإسلامه بركة أرنتاس سنا إنسي قولكم وكابنا حتى قرآن كوحي النبري إنه شيء تشينك لفتيس بركة دقيستين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب وحي النقطتين هنون كذا قرآن كي دقيستين سورة الأحقاف آخر كذا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولدتك وقورها مركز تشينكو كل دقيستين قرآن كدقيستين هذه آخرية كدبنا أنت إسلامين دتكو دينا أيسو إسلاميين الدعوة وفديين والدقيستي قوى سامين تاك يعني وكذلك سبب للرحمة نحريس أيا والسبب إنه أقول نقرأ دقيستي قرآن كريم كأسدو لهذا كل يكو سببيه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن كمرك الآخرية دقيست أو آموس أبو لهي سلا يدي كنا حريست إلا ذا وفير سلا أن حريس وهشام أهرمها صاردا وحد دريميسا كلامك إلهي دقيست جيسي آخرينتي سنان الله مذهين وح كلارنا الله مذهين مركها كقادين إن القرآن كدقيسته إياه إن هذا آخر الله بضبع قرآن كريم كأ أخرنتيس سيدابي النبي يا صحابة وأخري شرين نبي صلى الله عليه وسلم مركو أخري أيوه سامين وين بكرها قرآن كان له أزيز كأزيز المرجل بين أصحابه جوح بو يلنشري علاشي سي قديس كدري جو كلا مركو قرآن كأخري كر بقاها أولي
عبد الله بن مسعود بوري قد الأخر القرآن كان النبي قلنا ودقيسنا رسول كي لقوا سودة ما كعاجسية القرآن كما نحي سدعية لكن هو إلمي آيات كآخرة كهضلية مركو ودقيست النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر مركو القرآن كآخرية إدتك وكنت كينيو وإلمين شري عايشو النبي يقول صلى الله عليه وسلم سيدة صحيحة كسوغان أبو بكر وش يقول دتك هاتوكيو مركو حنوسني waxay leedahay oo hin daraadeed dadka maqashiin kari maayo markuu quraanka akhriyayo ee uu salaada isu taago ayuu ilmeynaya maxaa weyn ka ilmeysiinaya waa dareenka macaan iyo khushuucda iyo cabsida ilaahay Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo salaad subax uu ku tukinaya dadka suuratu Yusuf markuu maraya aayada ilaahay uu inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa nabi yaqub murugaysano dhibaatadii soo martay ka walacsan أيوب فبكى والكاسو الماي عبد الله بن عروة بن الزبير أيدي أسم الله الله وحول السدابي أي أخري ترين أصحابته قرآن كإلهي مركا وحي تري كما وصف الله في القرآن سيدو إلهي قرآن ككسفي أي أصحابته أخري ترين قرآن سيدو إلهي كسفينا وحوي تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قرآن كوحو الشيء inay indhahooduna ilmeeyaan jirkooduna qaban dhacyoodo oo jiridhacay dareen u yeesho marka halka waxaad ka fahamtay waxigan ilaahay xigmadu ugu soo dajiyo noo siiyay way badantay ka waxa ka dawada qalbiga iyo dawada ruuxda iyo dawada jirka iyo dawada dadka iyo dawada caalamka oo dhanba idan marka nolosheena quraanka inuu la noolaanayna adduunyada si aakhirana uu inagu shafaac qaado allah inaga aqbalo وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته